وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي سورة هذا مركز أرضي شرفت مضان وبرنامج كأنه كبر تلفزيون كقرن كجمهورية الصومال الآن إذا عاد الراديو أرجيسا مقعي ومع عبد الرحمن سعود عبد الله ومادة الساينس كا يفصل كتضباط إن شاء الله. waxay noo soo socday insha Allah cutubkii 10aad ee aynu kaga soo hadlaynaa astaamaha maatarka oo aynu imaanta eegi doono insha Allah casharkii ugu dambeysay oo aynu ka eegi doono noocyada falgalada insha Allah marka xiisadeena waxaanu si guud uga eegi doonaa noocyada falgalada iyo waxaad ku garan karto falgalkaasi noocawiyay ee inta badan insha Allah si guud aynu ka fargareyn doonaa inta badan markaynu ka hadlayno noocyada falgalada waxaanu qaybteenan hore ku eegi doonaa intaynaa cutubkeena 12aad bilaabin noocyada falgalada kiimikaad ee dhaca afar nooc baynu inta badan guud ahaan aynu halkan ku eegi doonaa kow waxaan eegi doonaa isu tagga tooska waxaan eegi doonaa inta badan noocyada falgalada nooca ugu horeysa inuu eegi doonaa waxa weeye waa falgalada kiimikaad ee isu tagga tooska isu tagga toosan ama falgalada kiimikaad ee isu darka si kale inta badan haddaynu dhigno inta badan falgalada waxaa la yidhahdaa waa marka laba curiye iyo wax ka badan si toosa la isugu daro oo ay soo saareen molecule cusub ama isku dhis cusub ayaa loo yaqaanaa isu tagga toosan inta badan waxaa ka mid ah imika haddaan soo qaata xarafka a oo aan ku daro xarafka ba waxaan helayaa maxsuulka ah xarafka ca falgalkaas noocaas waxaa loo yaqaanaa isu tagga toosan maxaa yeelay falgalkan wuxuu ka kooban yahay laba curiye iyo wax ka badan wuxuuna soo saaraa hal maxsuulo keliya inta badan waxaad ku garan kartaa had iyo jeer falgalada noocan ah ee isu tagga toosan ama falgalada isku daridda ah waa falgalada ku bilaabma hal shay iyo wax ka badan laakiin soo saara hal walaxo keliya oo maxsuulku markaa inta badan uu yahay un mid keliya tusaale ahaan marka haddaan soo qaato xarafka xa oo aan ku daro xarafka y waxaan helayaa tusaale ahaan xarafka z macnaheedu waxa weeye tusaale ahaan falgalka noocaasa waxaa loo yaqaanaa isu tagga toosan isu tagga toosan waxaa loola jeedaa waa falgalka ka kooban marka laba curiye iyo wax ka badan la isku daro ee hal maxsuul inta badan la soo saaro slayrskeena bal haddaynu wada eegno waayo noocyada falgalada kiimikaad xarafka ba falgalka ugu horeysa inuu eegi doonaa waa isu tagga toosan weeye isu tagga toosan falgalada noocan waa kuwa dhaca marka laba atom iyo wax ka badan ama laba molecule iyo wax ka badan ay isugu tagaan si kiimika ah sidaas darteedna ay sameeyeen hal molecule cusub oo isku dhis cusub oo ka gedisan wixii hore inta badan falgalku uu ka bilowday falgalka noocaas inta badan waxa loo yaqaanaa isu tagga toosan falgalka noocan marka inta badan loo yaqaan isu tagga toosan mararka qaar waxa la yiraahdaa falgalka isku daridda waa marka laba curiye ama laba atom ama laba molecule iyo wax ka badan la isku daro oo ay soo saaraan hal walax oo cusub ayaa loo yaqaanaa isu tagga toosan tusaale ahaan imika curiyaha carbon haddaynu ku darno neefta oxygen waxaynu helaynaa maxsuulka carbon laba oxide falgalka noocaas marka waxaan odhanaynaa waa isu tagga toosan maxaa yeelay falgalkan wuxuu ka kooban yahay laba curiye oo ah carbon iyo oxygen oo aynu isku darnay waxaana inoo soo baxaya maxsuulka keliya intaynu haysano oo ah carbon laba oxide falgalka laba nooc baynu qori karnaa ama magac ahaan baynu qori karnaa ama waxaan qori karnaa inagoo sumadda adeegsanayna sida inta badan halka inoogu qoran ugu horeyn bal imaka haddaynu samuurada isla soo eegno maxaynu ku garan karnaa had iyo jeer falgalka koowaad aynu eegayno waa isu tagga toosan falgalada noocan waxaanu si fudud ugu garan karnaa had iyo jeer waa falgalada ka bilaabma marka laba curiye iyo wax ka badan la isku daro ee hal maxsuulo keliya inta badan la soo saaro tusaale ahaan imika waxaanu haysanaa carbon aynu ku darnay neefta oxygen dabeedna waxaa nooga soo baxaya maxsuulka carbon laba oxide falgalka noocaas marka waxaa loo yaqaanaa isu tagga toosan ardayo inta badan waxa muhiim ah arday kastoo fasalka 7aad ku jira kow horta inaad garanayso muxuu yahay isu tagga toosan laba maxaan ku garanayaa haddii falgallo badan lay qoro falgalkaasi inuu yahay isu tag toosan iyo inaanu ahayn laba shay baad ku garanaysaa falgalka isu tagga toosan kow falgalkan wuxuu ka bilaabmaa laba shay iyo wax ka badan waxaana soo baxa hal maxsuul oo keliya
maxaan ku qeexanaa haddaba isutaga toosan waxaan ku qeexanaa waa falgalka kiimikaad ee dhaca marka laba atom ama laba molecule wax ka badan la isku daro ee uu soo baxo hal maxsuul ama hal isku dhis oo keliya tusaale ahaan imika waxaan haysanaa carbon ayaynu ku darnay hawada oxygen dabeedna waxaa nooga soo baxay neefta carbon dioxide falgalka noocaas marka waxaan odhanaynaa waa isutaga toosan wey isutaga toosan hadda samuurada aan kusoo yaro noqono tusaale ahaan imika waxaan haysanaa carbon plus waxaan ku darnay oxygen hawada oxygen labadooda marka la isku daro falgalkeenana wuxuu ka bilaabmay laba shay wuxuu ka bilaabmay carbon iyo oxygen maxsuulka inooga soo baxaya marka wuxuu noqonayaa carbon dioxide wuxuu noqonayaa carbon dioxide falgalka noocaasa marka inta badan waxa loo yaqaanaa waa isutaga toosan wey marka badanaa mararka qaar buugaagta qaar waxaad ku arki doontaa falgalka isku darida la yidhaha falgalkani badanaa wuxuu ka bilaabmaa waa marka laba curiye ama laba molecule wax ka badan la isku daro ee maxsuul kaliya inta badan soo baxo tusaale kale imika haddaan soo qaato imika waxaan soo qaatay birta sodium haddaan ku daro hawada chlorine waxaynu helaynaa cusbada sodium chloride falgalka noocaasa maxaad ku garanaysaa inuu yahay falgal toosan waxaan ku garanayaa wuxuu ka bilaabmay laba shay wuxuuna soo saaray maxsuul keliya falgalka noocaasa loo yaqaano markaa isutaga toosan wey isutaga toosan tusaale kale imika haddaynu soo qaadano imika waxaan soo qaatay birta magnesium haddaan ku daro hawada oxygen waxaan helayaa isku dhiska magnesium oxide inta badan markaa falgalada magac ahaana waa loo qoraa sumad ahaan waa loo qori karaa oo calaamadihii curiyaashaad inta badan exactly aad adeegsan kartaa marka falgalka isutaga toosan arday waxaa loo yaqaanaa waa falgal kasta oo ka kooban marka laba curiye ama laba atom ama laba molecule wax ka badan la isku daro ee lasoo saaro maxsuul keliya badanaa falgalada noocan lagu gartaa mar walba waxay ka kooban yihiin maxsuul keliyata ayay ka samaysan yihiin maxsuul keliya ayay ka samaysan yihiin marka nooca koowaad ee falgalada kiimikaada aynu isla eegaynaa waa isutaga toosan wey waxaanu noo qaadanay dhowr tusaale imika tusaaleaan carbon plus oxygen waxay nooga soo baxay maxsuulka carbon dioxide maadaama hal shay oo keliya inoo samaysmay isutaga falgalka noocaasa kiimikaad waxa loo yaqaanaa isutaga toosan wey maxaynu falgal kiimikaad u leenahay sheegan maxsuulka inoo samaysmaya uu ka duwan yahay wixii falgalku uu ka bilaabmay de maxaa yeelay inta badan marka waxa dhacay waxa la yiraahdo isbedel kiimikaad waxa dhacay marka waxa la yiraahdo isbedel kiimikaad waxaan eegi doonaa nooca labaad ee falgalka sliderskeena aynu eegno waaye nooca labaad ee falgalka waxa loo yaqaanaa kala bax ama si kale hadaynu dhigno waxa la yiraahdaa kala jabin inta badan falgalkana badanaa arday waxaad si fudud ugu garan kartaa waa falgalka ku bilaabma hal falgale dabeedna hal falgalun loo kala jabiyo laba maxsuul iyo wax kasii yaryar muxuu yahay haddaba falgalka kala baxo waayo falgalkani waa marka hal molecule u kala jabo laba molecule iyo wax ka badan oo ka yaryar kii hore ee ay ka samaysmeen yani wuxuu ku bilaabmayaa hal shay dabeedna hal shay unbaa loo kala jajabinayaa laba shay iyo wax ka badan falgalka noocaasa waxaa loo yaqaanaa falgalka kala bax ama falgalka kala jabinta ayaa la yidhahdaa maxaynu tusaale usoo qaadan karnaa waayo falgalada noocani waxay ku bilaabmaan badanaaba hal falgale oo la kala jabinayo arday marka waxaa si fudud u muhiima inaad si fudud u kala garan karto isutaga toosan wuxuu ka bilaabmayey laba shay iyo wax ka badan waxaana inoo soo baxayay maxsuul keliya laakiin falgalka kala baxa waxaad ku garan kartaa waa falgalka ka bilaabma hal walax ama hal shay ee dabeedna loo kala jabiyey laba maxsuul iyo wax kasii yaryar marka mar walba isagu wuxuu ka bilaabmaa hal falgale oo falgalku wuxuu ka bilaabmayaa falgalana inta badan waxaa la yidhahdaa waa waxa bilaabaya falgalka kiimikaad ee dhacaya maxaynu tusaale usoo qaadanaynaa tusaale imika waxaanu haysanaa dhagax nuuradeedka loo yaqaano didibka ee la yidhahda calcium carbonate dhagaxa inta badan waxaa lagu ridaa god yar oo la yidhahdo maraaq dabeedna waa la gubaa marka la gubo waxaa ka soo baxaa laba shay oo wuxuu kala jabaa calcium oxide oo aan nuurada cad iyo carbon dioxide oo ah qiiqa huruuda ah ee inta badan ka soo baxaya falgalkeenaas wuxuu ka bilaabmay hal shay oo ah calcium carbonate wuxuuna u kala jabay calcium oxide iyo carbon dioxide falgalka noocaas marka waxaa loo yaqaanaa arday kala bax ayaa la yidhahdaa maxaa yeelay inta badan dhagax nuuradeedka ama dhagaxan la yidhahdo didibka marka la kululeeyo ama la gubo wuxuu u kala jabayaa calcium oxide iyo carbon dioxide oo ah nuurada cad iyo carbon dioxide-ka marka equationkeena laba nooc baad u qori kartaa inta badan sumad ahaana waa loo qori karaa magac ahaana waad u qori kartaa waxaanu haysanay calcium carbonate kadibna waxay u kala jabtay calcium oxide oo dhagax nuuradeeda iyo carbon dioxide calcium carbonate-ku waa dhagaxa loo yaqaano didibka ama dhagax nuuradeedka dabeedna wuxuu kala jabayaa nuurada cad ee loo yaqaano calcium oxide iyo carbon dioxide oo ah qiiqan huruuda ah ee ka soo baxaya carbon dioxide-ku arday inta badan wax kale maaha tusaalehaan imika haddaad warqadaada gubto qiiqa huruuda ah ee warqadaadaas ay soo saaraysaa loo yaqaano maxay waa carbon dioxide marka koo horta waxaan u baahanay inaynu isla fahanno muxuu yahay kala bax
kalabax waxaanu nidhi waa marka hal molecule u kala jabo laba molecule iyo wax ka badan oo ka yar yarkii hore falgallada noocana maxaynu ku garanaynaa falgalladana waxay ka bilaabmaan hal falgale hal walax bay ka bilaabmaan kadibna hal walax baa loo kala jebinayaa laba maxsuul iyo wax kasii yaryar bal hadda samuurada aynu ku eegno tusaalaha tusaale imika waxaanu markii hore kasoo gudubnay falgalkeennii hore wuxuu ahaa wax la yidhaahdo isu tagga toosan markaynu ka hadlayno tusaalahaan kala bax qaab noocaasu inta badan u samaysay imika wuxuu ka kooban yahay falgalahaygaasi egas iyo y dabeedna waxaan u kala jebiyey egas iyo y markii hore wuxuu ahaa isku dhis ka kooban laba curiye oo egas iyo y waxaan u kala jebiyey dabeedna egas iyo y falgal kastoo ku bilaabma hal shay oo u kala jaba laba maxsuul iyo wax kasii yaryar ayaa la yidhahdaa kala bax waxaad si fudud ugu garan kartaa mar walba falgalkan wuxuu leeyahay hal falgale oo falgalku ka bilaabmayo wuxuuna usii kala jabi karaa laba maxsuul iyo wax kasii yaryar waxaanu tusaale soo qaadanay imika dhagaxan loo yaqaano dhagax nuuradeedka ama didibka ee la yidhahdo calcium carbonateska god baa lagu ridaa godkaa dabeedna waxaa lagu shidaa kul dab baa lagu shidaa marka dabka lagu shido laba shay buu u kala jabayaa wuxuu kala jabayaa calcium oxide iyo carbon dioxide inta badan waxaanu naqaanaa dhagaxan waxaa la yidhahdaa didib sida caadiga inta badan aynu naqaano kana waxaa la yidhahdaa waa nuuradda cad ee inta badan aynu sida fiican u naqaano exactly marka inta badan waxa la yidhahdaa waa nuuradda cad marka had iyo jeer marka la doonayo dhagax nuuradeedka in la sameeyo waxaa lasoo qaadaa god yaroo loo yaqaano maraaq af soomaali waxaa la yidhahdaa maraaq godkaasaa dabeedna lagu shubaa dhagax nuuradeedka ama dhagaxaanta inta badan laga buuxiyaa marka dhagaxaanta laga buuxiyo dabeedna inta badan waa la gubaa marka la gubo calcium carbonatekaasi laba u kala jabaa wuxuu u kala jabayaa calcium oxide iyo carbon dioxide falgalka noocaasaa loo yaqaanaa kala bax maxaa yeelay falgalkan wuxuu ka bilaabmay hal falgale wuxuu ku bilaabmay hal walax dabeedna waxay u kala jabtay laba maxsuul iyo wax kasii badan yani falgal kastoo markaa ku bilaabma hal shay oo usii kala jaba laba maxsuul iyo wax ka badan ayaa loo yaqaanaa markaa inta badan kala bax waxaanu tusaale kaloo soo qaadan karnaa imika haddaynu soo qaadanno cover 2 carbonate waa adkaha imika haddaan kululeyno oo aan ku shido kul waxay u kala jabaysaa maxsuulka loo yaqaano cover 2 oxide iyo carbon dioxide oo keeni horey markaa inta badan la mid tahay markaa tan waxaa loo yaqaanaa cover 2 carbonateka haddaan kululeeyo waxay u kala jabaysaa cover 2 oxide iyo carbon dioxide falgalka noocaasa markaa inta badan waxaa la yidhahdaa waa kala bax weye ardayga markaa inta badan mar walba waxa muhiima kow inaad garan karto horta nooca falgalkan uu yahay laba waa inaad garan kartaa falgalkan maxaan ku garan karaa eeg falgalkii koowaad aynu ka soo hadalno waxa isu tagga toosan waa falgalka ku bilaabma laba shay iyo wax ka badan laakiin waxaa noo soo baxaya hal maxsuul falgalka kala baxana waxaa loo yaqaanaa waa falgalka inta badan hal shay uun loo sii kala jebinayo laba maxsuul iyo wax kasii yaryar bal waxaanu eegaynaa hadda sladeskeena waayo falgalka kala baxana waxaan leenahay haddaba waa marka hal molecule u kala jabo laba molecule iyo wax ka badan oo kasii yaryarkii hore falgallada noocana waxay ku bilaabmaan hal falgale oo la kala jebinayo tusaale waxaan usoo qaadanay compoundka loo yaqaano calcium carbonate oo ah dhagax nuuradeedka marka la kululeeyo ama la gubo wuxuu u kala jabaa calcium oxide iyo carbon dioxide oo maxsuul kasii yaryar kuwii hore ah waayo nooca falgalka saddexaad waxaa loo yaqaanaa kala bax lamaan falgalkan wuxuu kaga duwan yahay kii hore wuu kala jabayoon laakiin kala bax lamaan waxaa loola jeedaa waxaa falgelaya laba isku dhis dabeedna waxay isweydaarsanayaan curiyaal ka mida curiyaashii iyaga ku jiray sababtaasa loo yihahda markaa waa kala bax lamaan wey waaye falgalkani muxuu yahay haddaba waxaa leen haddaba falgalka noocani waa ka dhaca marka laba molecule uu falgal ka dhex dhaco ee ay labaduba u kala jabaan dabadeedna ay hal iyo wax ka badan oo atamada ay kaga dhansan yihiina ay isdhaafsadaan falgalka noocaasaa loo yaqaanaa kala bax lamaan waxaa loogu bixiyey waxaa kala baxaya atamadii iskudhisyada falgal ay ka koobnaayeen bay isweydaarsanayaan kadibna waxaa soo baxaya laba iskudhis oo ka duwan kuwii hore falgallada noocaasa marka waxaa loo yaqaanaa kala bax lamaan maxaanu tusaale soo qaadananaa imika haddaynu soo qaadano hydrochloric acid oo aynu ku dirno iskudhiska loo yaqaano silver nitrate ama argentum nitrate labadaba oo la yidhahdaa waxaa inooga soo baxaya silver chloride oo adka ah iyo nitric acid oo iyaduna inta badan acid ino ah labada molecule ee falgalladani waxay isdhaafsanayaan labada curiye ee hydrogen iyo silver maxaa yeelay imika hydrogentu iskudhiska hore ku jirtay iskudhiska labaadna silver baa ku jirtay kadibna silvertii iyo hydrogentii bay isweydaarsanayaan labadoodaas falgalka noocaas waxaa loo yaqaanaa markaa kala bax lamaan bal samuurada haddaan ku yar eegno inta badan waxaan haysanaa ardayay iskudhiska ah hydrochloric acid iskudhiskaasaynu ku darnay iskudhiska loo yaqaano silver nitrate
oo isaguna inta badan milan ah labadaa isku dhis markaynu isku darno isku dhiskani wuxuu sii deynayaa silfarta kana wuxuu sii deynayaa hydrogenta labadaasay markaa inta badan iswadaarsanaya marka silfartan iyo chlorine baa isku xidhmaya waxay nooga soo baxaya silver chloride oo adka ah iyo nitric acid hydrogentina waxaa ku xidhmaysaa nitrate dabeedna waxaa noo soo baxaya dabeedna waxa la yidhahdaa nitric acid falgalka noocaas ardayda waxaa loo yaqaanaa kalabax lamaan muxuu kalabax lamaan u noqday marka falgalkan wuxuu ka dhex dhacaa laba isku dhis dabeedna labada isku dhis ayaa waxay isdhaafsanayaan laba atom oo ka mid ah atamadii iyaga ku jiray waxaana soo saaraya laba isku dhis oo kuwii hore ka duwan wuxuu noqonayaa markaa kalabax lamaan iminka saddex nooc oo falgallada ka mid a baynu soo sheegnay kow waa isu tag toosan laba waa kalabax iyo isku dhiskeena saddexaad oo inoo markaa wax la yidhahdo kalabax lamaan kalabax lamaan maxaad ku garanaysaa waa falgalka ka dhex dhaca laba isku dhis ee ay isdhaafsadaan laba atom iyo wax ka badan dabeedna ay soo saaraan laba isku dhis oo ka duwan kuwii hore falgalka noocaas waxaa loo yaqaana markaa isagana isku dhis lamaan waxaa kaloo muhiima ardayda tusaalahaan haddii falgallo lagu qoro waa inaad garan kartaa falgalladaa lagu qoray ma isu tag toosan baa mise waa kalabax mise waa kalabax lamaan isu tag toosan waxaad ku garan kartaa waa falgalka ka bilaabma laba shay laakiin soo saara hal maxsuul kalabax waxaad ku garan kartaa waa falgalka ka bilaabma hal shay laakiin hal shay un lasii kala jejebinayo kalabax lamaana waxaad ku garan kartaa waa falgalka ka dhex dhaca laba isku dhis laakiin laba atom iyo wax ka badan ay isdhaafsanayaan dabeedna ay soo saarayaan laba isku dhis marka kuwan inta badan tusaale nimaka halkan waxaa ku jirtay silver halkan waxaa ku jirtay neefta hydrogen labadaasay markaa inta badan isdhaafsadeen sida halkaa marka inta badan kaaga muuqata labadooda falgalka noocaasa marka waxaa loo yaqaanaa waa kalabax lamaan waxaanu tusaale kale usoo qaadan karnaa tusaalayaal badan baynu soo qaadan karnaa tusaale labaad haddaynu ka bixinay imika tusaalehaan falgalka aynu soo qaadanay ee ah kalabax lamaan waxaynu soo qaadanaynaa imika isku dhiska silver nitrate ayaanu ku daranaa isku dhiska sodium chloride oo cusba ah labadaa markaynu isku darno waxaanu si fiican u naqaanaa silfarta halkaa ku jirta iyo chlorine-ta halkaa ku jirta ayaa isku xidhmaya marka chlorine-tani silfartaasay ku xidhmaysaa nitrate-kana sodium-taasu ku xidhmaya way isdhaafsanayaan that means markaa tanna tanay ku xidhmaysaa tanina taasay ku xidhmaysaa sida sawirka inta badan exactly kaaga muuqata waxaa noo soo baxaya dabeedna isku dhiska silver chloride oo adka ah iyo sodium nitrate oo cusba ah inta badan waxaynu naqaanaa markaa sodium chloride iyo sodium nitrate labadoodaba markaa inta badan waa cusba isku dhiska noocaasa markaa waxaa loo yaqaana ardayay falgalka noocaasa dhacay ayaa la yidhahdaa kalabax lamaan kalabax lamaan wuxuu ku noqday laba atom ayaa la isdhaafsanaya dabeedna waxaa soo baxaya laba isku dhis oo kuwii hore ka duwan waxaa kaloo inta badan arday aad si fiican u ogaataan yani mar kastoo falgal kiimikaad u dhaco waxaa dhaca isbeddel kiimikaad isbeddel kiimikaad waxaan uga jeednaa waxaa samaysmaysa walax cusub oo tii hore ka duwan astaam ahaan iyada inta badan marka la eegayo maxaa yeele waxaanaynu ku sheekeyno dhan marka waa falgallo kiimikaad marka imika saddex falgal baad ila soo fahanteen ardayda idaacadda kala socda iyo kuwa tv-ga kala socdaba kow isu tag toosan laba kalabax iyo isku dhiska saddexaad oo inoo ahaa wax la yidhahdo kalabax lamaan isu tag toosan waxaynu kusoo sheegnay waa falgalka marka laba atom ama laba curiye iyo wax ka badan ay falgalaan oo ay hal maxsuul soo saaraan laba kalabax waxaynu kusoo sheegnay waa marka hal walax loo kala jebiyo laba maxsuul iyo wax kasii yaryar iyadoo waxa lagu kala jebinaya ay noqon karaan saddex midoon waxaa lagu kala jebin karaa kul waxaa lagu kala jebin karaa in la kululeeyo oo walaxda inta badan exactly iyadana inta badan waa la hiidgarayn karaa waxaa lagu kala jebin karaa iftiinka cadceedda oo walxaha qaar inta badan iftiinka kala jebin karaa waxa saddexaad inuu soo sheegnay falgalka saddexaad inuu soo sheegnay waa falgalka loo yaqaan kalabax lamaan waxaanu niri waa falgalka dhaca marka laba isku dhis ay isdhaafsadaan laba atom iyo wax ka badan oo ay soo saaraan laba maxsuulo ka duwan kuwii hore falgalka noocaas loo yaqaan kalabax lamaan maxaanu tusaale soo qaadanay imika isku dhiska hydrochloric acid haddaan ku daro silver nitrate silfarta halkan ku jirta iyo hydrogen-ta halkan ku jirtaa bay isweydaarsanayaan dabeedna waxay nooga soo baxaya silver chloride iyo nitric acid falgalka noocaasa marka loo yaqaana kalabax lamaan isleedhkeena haddaynu ku noqono marka waxaan leenahay kalabax lamaan falgalka noocani waa ka dhaca marka laba molecule uu falgal ka dhex dhaco oo ay labaduba u kala jabaan dabadeedna ay hal atom iyo wax ka badan ay isdhaafsadaan waxaanu tusaale usoo qaadanay isku dhiska hydrochloric acid haddii lagu daro isku dhiska silver nitrate waxay nooga soo baxaya adkaha silver chloride iyo nitric acid maxaa yeelay labadan isku dhis waxay isdhaafsadeen atamada hydrogen iyo silver waaye nooca afraad ee falgallada ardayga waxaa loo yaqaanaa barabax si yaro kooban imanka haddaan idinku sheego barabax af soomaali waxaa la yidhahdaa barabixin waa marka curiye uu curiye kale ka saaro isku dhiska uu ku jiray kaasaa loo yaqaana markaa inta badan barabax waxaa inta badan muhiima inaynu isweydiin karno barabaxu muxuu yahay
goormuu curiye kale barabixin karaa yani curiye kasta wuxuu barabixin karaa curiyaha kale marka uu ka firfircoon yahay falgalka noocaasi dhacana waxaa loo yaqaanaa barabax markaa waxay tusaalaan waa marka curiye uu curiye kale ka saaray isku dhiskii uu ku jiray ee isagu uu galo kaasaa la yidhahdaa barabax ayaa la yidhahdaa barabax waaye maxaan ku qeexanaa haddaba barabax waa falgalka dhaca marka curiye uu ka saaro curiye kale isku dhiskii uu ku jiray waaye laba curiye kastaa waxa uu ka saaraa isku dhiska uu ku jiro curiye uu ka firfircoon yahay arday waxaad ogaataa tusaalaan curiyaha ma barabixin karo curiye isagu uu ka firfircoon yahay laakiin curiye kastaa wuxuu barabixin karaa curiye uu ka firfircoon yahay hadhow samuurada waxaan idinku tusi doonaa tusaalahaan liis sida curiyaashu ay u kala firfircoon yihiin oo ay isu kala barabixiyaan laakiin curiye kastaa wuxuu barabixin karaa curiyaha uu ka firfircoon yahay isku dhiskana isagaa soo gelaya ba maxaa tusaaleyno ah imika waxaan haysanaa birta loo yaqaano sink ayaynu ku darnay isku dhiska ah cover to selvet sinki way ka firfircoontahay coverta isku dhiska ku jirta dabeedna waxay nooga soo baxaya sinki selvet iyo cover markaa sinkidii waxay barabixisay covertii maxaa yeelay sinki way ka firfircoontahay coverta falgalka noocaasa dhacana waxaa loo yaqaanaa barabax waxaa la yidhahdaa markaa inta badan barabax markaa barabax waxaa loola jeedaa waa marka curiye uu barabixiyo curiye uu ka firfircoon yahay isagu inta badan ayaa si fudud aynu oranaa falgalka noocaas waxaa la oranaya markaa waa barabax bal hadda samuurada aynu ku yar wada eegno arday waxaynu halkan ku eegaynaa falgalkeennii ugu dambeeyey ee nooca falgallada kiimikaad ee la rabo inaad si fiican u garan karto falgalkan waxaa la yidhahdaa barabax yani sida af soomaaliga kaaga muuqata ereyga barabax marka laga hadlayo waa marka curiye uu barabixiyo curiye kale ee uu ka saaro isku dhiskii uu ku jiray tusaale ahaan imika waxaan haysanaa birta sink ayaynu ku darnay isku dhiska cover to selvet waxaanu si fiican u naqaanaa birtan sink way ka firfircoontahay birtaa loo yaqaano cover marka maadaamay covertan ka firfircoontahay halkeedii bay qaadanaysaa oo way barabixinaysaa waxay noo soo baxaya dabeedna sink selvet iyo cover oo dibadda inta badan u baxaysaa exactly arday waxaad isweydiisaa markii hore selvetkan waxa ku xidhnaa coverta laakiin imika waxa ku xidhan sink halkii markaa covertu ay taale waxa bedeshay sink falgalka noocaasee dhaca marka curiye uu curiye kale ka saaro isku dhiskii uu ku jiray ee isagu uu galo ayaa loo yaqaanaa barabax tusaale fudud haddaan idin siiyo imika haddii arday meel fadhiya aad ugu timaado fasalkaaga dabeedna ardayga intood adigu meesha ka saarta adigu aad fadhaysatay halkiisii kaasaa waxaa la odhanayaa waa barabax waa good example wey tusaale ahaan imika haddaynu tusaale kale soo qaadano imika waxaan soo qaadatay birta magnesium haddaan ku daro isku dhiska ah sink selvet waxay nooga soo baxayaa magnesiumtani way ka firfircoontahay sinkidan marka maadaama magnesiumtani ay sinkidan ka firfircoontahay waxay noo soo baxaysaa magnesium selvet iyo sink haddii jeer markaa birta la barabixiyo dibadda ayaa loo saaraya iyadoo birteediya falgalka noocaasi dhaca ayaa markaa waxaa la yidhahdaa waa barabax maxaad ku garan kartaa barabaxa waa marka curiye ama bir inta badan biraha u badan neefaha qaarna inta badan way soo barbixiyaan waa marka curiye uu barabixiyo curiye uu ka firfircoonyay ee isagu uu galo isku dhiska halkii uu kaga jiray falgalka noocaasee dhaca ayaa markaa waxaa la yidhahdaa maxay waa barabax 4 nooco falgallada baynu ilaa imika soo sheegnay 1 waa isutaga toosan 2 waxa la yidhahda kalabax iyo 3 kalabaxa lamaan iyo isku dhiskeena afraad oo loo yaqaano barabax waxaan ku soo sheegnay waa marka curiye uu barabixiyo curiye kale ee uu ka saaro isku dhiskii uu ku jiray inta badan arday markaa samuurada dad si fiican la socotaan hadii jeer curiyaashu waxay soo barbixiyaan sidee u kala firfircoonayeen imika curiyaha potassium sodium calcium magnesium aluminium zinc iron lead silver iyo gold hadii jeer saas inta badan markaa ardayda soo barbixiyaan curiye kasta wuxuu barbixin karaa uun curiyaha ka hooseeya sida caadiga inta badan adeegsan imika dad u fiirsato waxaan haysanaa waa sodium potassium sodium calcium magnesium aluminium zinc iron lead halka waxay ugu jirto cover waxa ugu dambeeya markaa cover silver iyo gold waa saddexda birood inta badan ugu liita xagga firfircoonida hadii jeer waxa la yiraahdaa birta ugu firfircoonida liidata waa birta la yiraahdo dahabka waxaa la tusaale imika dahabka marka la qoto isagoo sidiisa baa dhulka laga helaa maxaa yeelay hadii jeer dahabku lama falgalo ciidda iyo isku dhisyadii inta badan ciiddu ay ka koobnayd imika haddaad u fiirsataan cover iyo sink sida halkaa idinka muuqata sinkidu way ka sarreysaa coverta marka curiye kasta wuxuu barabixin karaa un curiyaha ka hooseeya liiska marka si guud inta badan loo eego tusaale imika potassium waxay barabixin kartaa sodium maxaa yeelay ka firfircoontahay calcium waxay barabixin kartaa magnesium aluminium waxay barabixin kartaa zinc zinkidu waxay barabixin kartaa iron
irontu waxay barbixin kartaa lead waxay barbixin kartaa cobartu waxay barbixin kartaa silver ta ugu liidataana inta badan waa dahabka marka si guud inta badan iyaga aynu eegayno marka guud ahaan afarta nooc ee falgallada kiimikada aynu kusoo sheegnay waxa weeye inaynu isla fahanno waa isu tag toosan 2 waa kala bax lamaan 3 waa kala bax 3 waa kala bax lamaan iyo nooca afraad aynu kusoo sheegnay marka waxa la yiraahdo barabax mar walba inta badan arday marka waxa muhiim ah falgal kastoo lagu siiyo waa inaad garan kartaa falgalkaasi ma isu tag toosan ba falgalkaasi ma kala bax ba falgalkaasi ma kala bax lamaan ba falgalkaasi inta badan ma barabax ba hal yar baan jecelahay inaan idinku soo wada koobo ardayda idaacadda kala socotay iyo ardayda TV-ga kala socotaba oo aad ku kala garan karto isu tag toosan waa falgalka ka bilaabma laba shay ee soo saara hal shay kala bax markaynu ka hadlano waa falgalka ku bilaabma hal shay ee la sii kala jajabeeyo kala bax lamaan markaynu ka hadlano waa falgalka ka dhex dhaca laba isku dhis laakiin laba atom iyo wax ka badan ay soo idaarsadaan falgalka barabax marka loo yaqaanana waa marka curiye uu barabixiyo curiye kale insha Allah marka halka waxa naga dhamaaday cutubkeeni 10aad waxaanu bilaabi doonaa xiisadeena dambe cutubka 11aad insha Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno